kow baan kuu geynayaa kow markaan kuu geeyo bal hadda mar kale aan kugu celiyo dhagaxii waa kaa waxay igu dartay 1 2 3 bay igu dartay xagga ii dhig tan waxay ku dartaan eego marka laata sorry aan fiiriyo xabad kuma darayso hal xabo kuma darayso sababtu maxay tahay waan u tagi doonaa sababtoo u tagi doonaa walaal weli dhagaxii baan gacanta ku hayaa tanu kowdii ii joogtaa waxay ku dartay mar kale aan kugu celinayaa intii aan isla ogeynay ku daraysaa kadibna halkay ku laabanaysaa dhagaxan hayana waa kaa okay weli waxaan rabay mataqaana musoota isla dhagaxiyan hayaaye waxaan ka dhigi doonaa saacaddii bilaa calaamada ahayd weeye waxaan ka dhigi doonaa saddexan geenayaa saddexan geenayaa afwan saddexan geeyey saddex markaan geeyo balaan eegi doonaa insha allah tacaala dhagaxan meesha ii ka geysan fiiri doonaa markaasay wax ku daraysaa soo ma jeedid iyadu saddex iyo meelahaasayba ka kacdaaba bal aan sii wado laftigeeda aan sii dhoweeyo saddex aan geeyo meesha ay taagantaana aan kugu celiyo waa kaa weliba halkii inay tagto waa inaan lambar ku daro anigu inaan soo celiyo mooyaane ma laabanayso sida caadiga ah saddexdaas ayaan rabaa inaan ku geeyo markaasay shaqo bilaabaysaa sida caadiga ah farqiga walaalow waad arkaysaa saacaddan layskuma halayn karo ma fadhiso walaal noocaanu ma fadhiyo okay tani way fadhisaa walaal damaanaday leedahay waa la tijaabiyey waa exclusive mataqaanaa masoo tahay product company baa iska leh tanu waa commercial suuqa waxa dadka mataqaanaa ku qaldaya waa noocan dadkii odhanaya waa bahashan waa i wareerisay walaalow saacaduhu marka mataqaanaa masoo tahay saacadahan aad bay u fiican yihiin loo hubaa laakiin dhibka jira waxay tahay isticmaalkii laftigiisu qariban iyo sidaasoo kaleto mashiinada laftigeeda oo caqabadii qayb ka ah walaalow haddaba haddii aad doonaysid mashiin la hubiyey la tijaabiyey waa kuwaas astaanta leh ayaad walaal qaadanaysaa DMT baad qaadanaysaa walaal annagaa hubinay annagaa tijaabinay waxay ka dhigantaa marka walaal si kooban markay saddex joogto tan iyo tan markay hal tahay ayay isku mid tahay macnaha okay waxaan ka wadaa walaal dhagaxaanta